dhammaan inta saxaafadda halka joogta iyo inta kala socota meediyaha meelaha fogfog ka daawanaysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan saaka idinku yeedhnay xisbi ahaan inaanu caddayno mowqifka iyaga ku wajahan arrimihii doorashooyinka iyo heshiiskii laga gaadhay maalintii u dambeysay ee madaxtooyada ay ku saxeexeen saddexda xisbi qaran ee madaxweynuhu hormuudka ka ahaa oo ay shalayto waxa weeye ku soo daystay in si sahlan oo aan sharci ahayn oo aan hab raaca iyo nidaamka sharci waafaqsanayn la yiraahdo qof baa isu hortaagay oo inaan lawyer baa isu hortaagay la yiraahdo ayaan doonaynaa inaan ka hadalno mowqifka iyaga horena waxa uu sheegay Cabdulqaadir waxaanu si faahfaahsan uga warramay arrinta noocaas ugu horeyn waxa aad wax loogu qosla oo la yaab leh heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen aan qaranka cid u maqnayn ee beesha caalamkuna inugu helisay marxaatiga ka ahayd in kala shaqaysay in la yiraahdo inan ba loo yaraba diidayo yiri waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaas oo dhan waxa isku raacday waa sharci darro oo waxa loola yaabo oo lagu qoslo wuxuu oran karaa hadda ma diidayno wuxuu oran karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa loo yarahaan ama sharci yaqaanaan qofka sharci yaqaankii aragtidiisa sharci buu sheegi karaa laakiin heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo goluhuna ama diida ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama uu diido waxa kaliya oo wax ka bedeli karayo diidi karayay heshiiska ama burin karayay ama laali karayay diidmada goluhu diido xisbiyada mucaaradka aanu ka mid ka nahay way ugu tala galeen haduu goluhu diido qodob ka midana weeyii haduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo haduu ogolaadana in saga laga dhigo marka waxa muuqata xukuumadii kulmiye ee madaxweynaheedii saxay iyo xisbigeedii oo the speakerku uu ahaa goobjoog inay si indhala'aana heshiiskii u buriyeen maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aan sidiisii u raacin annaguna mowqifka wadani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaas nama qabto waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaas uma xidhnin waxa si aan ogolahay haddii miiska wada hadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yiraahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale ay bari ka tahay annagu waxaanu tuunsanaynaa iyagu dabada ka riixayaan hadday se bari ka noqdaan oo yiraahdaan waanu idin niyad baanu waanu niyadsanahay in heshiiskii la sii wado annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxada ummadda ka gacan taagan may laakiin si mowqifka iyagu waa kaan soo sheegay maxaan uga tagnaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qadan iska dhaadhiciyaan shalayba waxaan arkay ragle waxay hadii la diiday hadii la yeelo war cid laga hadlayay hadii la diiday hadii la yeelo golahay ahayd inan maaha inan intuu isa soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciya mashruuc sharci baa la markuu stage ka marayo inan ma diidi karo tan uu ka dhiiban kara inan ma diidi karo mana dadafin karo mana laali karo sharci yaqaan waxaanu inan kula taliyaa gudoomiyaha hadduu sharciga kala taliyo isagu go'aan wax ku diiday wax ku yeelo ma laha marka waxaan arkay rag qaarkii oo u dhigaya goliyada hadduu diiday waa in todobadii laga dhigaa todoba hadii laga dhigo way sahlanaan lahayd hadii goluhu diido annaga marka ku khasban inaan heshiiska raacno laakiin saadeer golihii lama horgeyn waxay iga muuqataa wadaada bada murmayo markaas waxay ahayd waxa sharci baa lagu murmo kadib wadaadadu isku qabta sharcigo mid baa wuxuu yiri war salliga nabiga diidanta hadda salliga bal isku hayo wuxuu isla soo taago salliga nabiga diidanta
adeer heshiiskii wuu buray oo heshiiskii waa la laalay baan leeyahay adiga buriyay waxay ka dhigantaa saliga nabiga diidanta heshiiskii adiga buriyay ee bareer haddaad burisay oo ka baxday oo kula madmadoobaday waliba waxaan cadeynayaa golaha kulmiye inuu majority leeyahay oo dariiqii u furay ugu sahlanaa ee anagu aanu bareernay ee dad badan dhala yaabanay lahayn maxaad u geyseen ee u aqbasheen oo ahaa in heshiiska loo codeeyo codka weyn naga cod badnaayna kulmiye golaha aqlabiyad buu ku haystay goli aqlabiyada ku haysteen intay ka baydhaan xildhibaanadii u codeeyaan in dariiq qardajeexa waan sharciga meel la kaga ool inuu kulmiye u bareero waa ayaan dar waxaan leenahay waar kulmiye dawladnimada aamin waar sharciga aamin waar golayaasha codkooda aamin waar madaxweynahaaga saxiixiisa aamin qodobada heshiiska ayaa na siinaya inaanu ka baxno hadii ay buriyaan aanu cadaynayna inay buriyeen waxay ahayd oo heshiiska ku qoraa in awalan ba laga wada shaqeeyo oo saddexda xisbi ay ka wada shaqeeyaan 15 xubnoodan guddiga aanu kamid ahaa ayaa loo qoondeeyay oo lagu heshiiyay inay ka shaqeeyaan kulmiye kama soo xaadirin baarlamaankana nooguma iman fadhi kaliya noogu iman laakiin u cid waan wada fadhinay ilaa iyo shalayto ilaa iyo maalintii waan wada fadhinay ka wada shaqeynay waxaanu agta ku baadi doonaa kulmiye inaanu niraahno war kaale nagala shaqeeya anagoo ka eegayna niyad samida iyo danta guud iyo maslaxada ummadda gudoomiyaha ugu tagay madaxweyne ku-xigeenka gurigiisa oo weydiiyay wali waan sugaynaa wali noo mu iman shalay un bay lagu warhelay inaan baa yiri waxba kama jiraan wixii intaas ku heshiis waxa iyaduna tusinaysa inay heshiiska gacan bidixayeen oo kulmiye ka baxay qodob kamid ah tilmaamayay in si siman ay u saxeexaan xildhibaanada saddexda daraf ucud xubin bay ku lahayd markaana waa la isku ogaa xubinteedina meel fog bay uga yeedheeno qayb ka u saxeexa kulmiye laba nin oo iskood noogu yimid madax banaan mooyaane kulmiye madaxdiisina nooma iman xildhibaanna abaabulona uu noo keenay uu hebel bay la saxeexayana oo ay hadii 7 xubnood ugu yaraan noo keenaan koobiyo toban buu ku ansaxay laakiin waxa la isku ogaa lagu heshiiyay in ka badan ugu yaraan koobiyo toban bay inay 7 xubnood 6 xubnood labada xubnood iskood noogu yimid mooyaane waanu ku amaanayna runtii inay danta qaranka xeeriyeen iyadoo xisbigii ay xildhibaanadoodii nagu yiraahdeen marka nu la hadalay xisbigii nama amrin bay nagu yiraahdeen marka waxaanu leenahay qodobkaasuna heshiisku kamid hayaga jabiyay ka saddexaad wuxuu ahaa marka heshiiska la geeyo haddana in laga wada shaqeeyo meel marinta heshiiska ama xildhibaanadu ku diidayaan ama ku yeelayaan taasuna ma dhicin marka waxaanu leenahay maadaama aanay yani ka shaqaynin oo nagala shaqaynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiye fulinin maadaama aanay raacin procedure-kii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen arinta tan dhacdayo iyadoo aanu golihii diidin golihiina aanu waqtigiisii gaadhin goluhu hadduu fasax sharciga galo mushkilad maaha golaa waqtigiisii gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay inuu 23 bisha fasaxu ku leeyahay fasax la soo qadimay aan waqtigiisii ahayn ayaa gudoomiyuhu u galiyay xisbiga u galiyay fasax galiyay golihii marka taasuna waxay muuqataa inay qayb ka ahaayeen inay heshiiska waxa weeyaan ka baxaan oo buriyaan haddii ay ka baxeen oo buriyeen anaa ka baxna waxaanu leenahay waar doorashadii haddaa diyaar u tihiin nin kale wadani doorasho dooni maayo ilaa maalintii waxaanu la taagnay doorashaanu doonaynaa miiskaanu u taaganahay waxaanu leenahay wuxuu ka dhigay ninka uu la saliga nabiga diidanta waraadeer ma diidanini doorashada ma diidana wadaniye miiska kaalaya haddaana doorashada diidanayn maxaad golaha majority uga tahay uga baqaysaa ee u iman weydi ee uga codayn weydi ee uga ololeyn weydi ee uga shaqayn weydi marka waxaan ku soo ururinayaa wadani mowqifkiisu ka aan idin sheegay weeye waxa uu kala shaqaynayaa cid walba oo wada in dariiqii doorashada qodaxda laga xaadho oo la diyaariyo wuxuu kala shaqaynayaa wadani diyaar buu yahay kala shaqaynayaa
doorashu minidkii la qabtaa daqiiqadii la qabtaba hadii la baraa la qabanaya doorashu diyaar u yahay laakiinsi deewaaniga soo sheegay heshiiskii ahayd caqabadii hor taagnaa yarinii laga wada hadlayay waxa diiday kulmiya diiday markii horena qardajeexiisi bay mareen oo iyadoo sahlanayd dacwadii wadani soo gudbiyay ee 7 xubnood ee komishinka ay kaga ku eedeeyeen iyadoo ku filaydin gudi loo saaro oo maalinta labaadba gudoomiye markuu gudiga magacaabo maalinta labaadba gudigu oran kari lahayd garbeelayna ma garma laha wadanina hadii la gar uma laha wadada iska mari laha ayaa maalinta horena waxa la maray dariiq aan sax ahayn oo ahaa waanu abaal marinayna adeer maxaad u abaal marinaysaa waxa xakinkii inoo dhaxeeyay maxaa tuunka ugu abuuraysa tuunka ninka xakinka waa la eedayn karaa oo cid way tuumi kartaa adigu maxaad maraga ugu furaysaa tuunka maalintii horena dariiqa waqtiga dheer qaatay iyaga sabab u ahaa oo laga yaabo inay bari ahaayeen komishinkii laga yaabo hadii waxba ku cadaan waayaan waxa wadani ku khasbay inay leeyahay waa bari hadii waxba ku cadaan waayaan gudi dhaxay ay tiraahdo waa bari marka iyagiina baraadoodii iyo waxa weeye inaanay dhibaato geysan iyaga madmadow galiyay waqtiga dheer way lumiyeen maantana iyadoo dariiqii sahlana ka yahay ayay qardajeex amreen waxa la kurmiyo qardajeex ka soo noqo wadada amaatinti waxay saash qodada daato Facebook Soomaaliya iyo Soomaaliya inta kor qorno ogaamiyay xildhibaanada diidana mooshinka ka dareeray waxay isugu jiraan xisbiyada labada xisbiyood oo gudubka weyn ee kulmiye iyo wadani mooshinka xildhibaanadaasi ay hay iyagu waxay isugu jiraan xisbiga talada ay kulmiye xisbiga wadani waxa leedahay arintaasi ma jirto horta daawalan ma jirto xisbiga wadani xildhibaanaha oo ka dareeray ma jirto oo marka taan ku saxay ma jirtay xildhibaano labada daraf oo tabanayay maalintii hore ka hadlay oo darafyada tabanayay iyagu marka tay tabanayeen waxay ahayd arinta saami qaybsiguna ma ahayn arimo xisbigu ka wada hadlayeen miiska madaxweynaha taala marka ma ahayn mawduuc laga hadlayay mawduucan laga hadlayay 9 xubnood laga dhigo 7 laga dhigo saami qaybsiga shaqo kuma laha hadii 7 laga dhigana saami qaybsigii wax ku kordhin mayso waxna ka dhigin mayso hadii 9 laga dhigana wax ku kordhin waxna ka dhigin mayso soo laakiin xisbiga wadani kuma jirin kuwaas darafyada labada darafa of course taqaad ba ku jira laakiin kamay dareerin xisbiyada mawduucaas ka dareeray heshiiska kamay dareerin mooshinka may diyaariyeen xisbiga kulmiye xildhibaanadu deesoonigi sheegayba waxa xildhibaanadu may diyaariyeen mooshinka waxa diyaarinayay diyaarintii hore saddexda xisbaa soo diyaarinayay madaxweynaha laba gudoomiye saxay saxiixistay nagala qayb qaadan lahaayeen maya laba xubnood baa nuugay waxa jirta maalintii loo gudbiyay shaqadoonka mooshinka wada weydana waxa ka dareeray xildhibaano xildhibaanaha hadlay oo xisbiga wadani ka tirsan waxay sheegeen in dareerista xildhibaanadaas ay ka dambayso xukuumaddu miyaad la qabtaan aragtidaas aragtiya siyaasada waa tuhuma badan lagu bineeyaa in badan oo kamid ah de tuhumkaas uu iska jira laakiinsi cadaynta imka inay iyagu soo direen oo anka yiraahdeen de ma oranay hawsha shalay waa ka dhacday sharciga gobolka hadlay waxaad sheegtay inaad ku tuusantiin xukuumadda ka dambayso gobolka gudoogu leeyahay weli ma caddo waxaad sheegtay in wax tilmaantay inaad tuulan tahay xukuumadda ka dambayso ma tuulna cadaan baa sheegay qodobay buriyeen tuusanaya inay xukuumadda ka dambayso maya cadaan qodobay buriyeen baa sheegay in heshiiska burinayeen waxa kamid qodobada tahay taas marka idinkoon uu xisbiga kulmiye wax iska xagga heshiiska baxaa sano kale heshiiskii hurtayay ka bixin buriyeen ba أولاً إني واحد بريان قطب كي أها إني نجلاش شقيان وشان يترون جودي الله صعب وصدق حسبيهم من شنا ما يكسو حاضرين قطب كسوي بريان استدي قطب كمدها كي لبعض نوحها إني هشيس كلفتي سدالة صحيحان وحلبانا ده يلا صحيحان لبي لبعتك صحيحي لبا حبنود بكلين كل مية وإيش كود نوبيني وأن حسبي حبني يسي مدحني يسي نوكيني أما نجلاش هذا نقولي يروي بس ما تحبنا بنقولي marka oo de wakii sheek kamid shalay reeti hadlayay dadafeynay in ala boqofka dadafeynay oo kulmiye marka yaani ma aha anagu inaanu ka baxnay inaga kulmiye saaran kulmiye hortiye buriyay anaanu ka baxnay buriyadi hadii ucid awada shaqeynaysa intii aad mooshinka ka gudbinay maxaa imka xisbiga oo inta soo dhaaway shaqeynaysa isku ogtay shalay mowqifkooda way sheegeen waqti saxaafada ku qorano iyaguna waa nagala mid inay aad kulmiye oo hayaan in kulmiye buriye heshiiskii oo nagala mid